أبوان سلام عيدين بكسر لوني كديم يحس يلا سشدة يقول لنا خلي تفضل أو بلوغ الحين أنت بلوغ اللي سكون عليه بريك ما تشوف لكن والله السلام عليكم دمانتي رحت عبد المحمد قيا سيدا قرطة الضرر الوقتين من الرسول الثاني دمانتي بعد المحمد قيا waxaan kaloo mahadnaqayaa fanaaniinta odayaasha soo xilqaamay dhammaantood waxay mahadsanyihiin kole xuritaanku waa wax iska dhib badan marka qaarkood waxa laga yaabaa qofka abuurkii markuu xurinayo inuu qoslo waxyaabo uu qoslo waxa ka mid ah jacburaad maqashaan wada qosla inteedaan qoslo koor uu sii qoslo waxaan doorinay oo way waxa isaga korkiisa qosliyeen kuwa qeyrada la baa jira inteedaan ku qiro ku sii qeyrooday isku soo wada duubo markaan haysta xurinayay waxyaabihii ku siiyay baa jiray horta heesta aan wax marka hore ayaa waxaan tagay xalfad wasiirada lagu soo dhaweynayay xalfadaas oo ka jeediyay Waalka Cabdikariim khudbad aad iyo aad u qiimo badan khudbadaas waxa ahayd heestaad ka dheehan doontaan kadib marka meeshii ka tagay habeenadkii waxa si kala qor heestii iyo khudbadii u bedelay iyadoo faltixaan kadib waxaan ka bilaabay labiyo dhadig baan nahay ciidooda ku dhaarto dhabtii jacayl baan nahay markaasaa sidii qaal labiyo dhadigani odayaasha iyo saabuhu noqon karaane maxaad ka hadlaysan qaraado إلى اليوم بكاريه وحياة أحكي لنا ويربي عيان كده واحد يوصل عليه ما كان من أنا جوجا كل جيجا ولا فرق السورية إسلام قالوا ده في الجدي إلى أمريكا ده حتى إلى ماشى في الجدي كده واحد أكتر كصاب حي الله واضح ما كان بدأ قالوا ده تكون يوم بكورك وهيستي كعنت كلامك كلاهي لما يوم بيجي وصل وهذا اللي واحد أخر إسلامتي كده بتقول الله واضح أنا تياري أبا يا يورا سيقول ترى أبو والله halkii soo bariidiyeen markaasuu wiilkana isbata taana waa la ilaahay oo intii tikibay boqorada watay saasar way waxa shaqada meesha waxa jooga wiil kale isoo odayigu marka ayagu isku shaqeeyo jira ma la socotaan kuwaas soo qaadaya marka markii dambe uu soo been noqotay jihdi waxa tiri ifku deedad weeyo dhaxdin laba dhanaaro saacadaha isdaafiyo waqtiyada isdala roga ayaa wada dhibaatay wax ku dhega geliya lurta iyo dheeftuna waa laba isdhinacayaan haddii baasoo kale saacadkii saxaafadda oo kamera maankeeda iyo haddii ilka loo dhigay dhoowada bar lagu rogay haddii qaar la dhaawacay waaxyo la kala dhimay haddii dhimarkiiya garaad darteen uga dhoofay qaar hadday dhudhun iyo awood shalay diridhaba ahayd maantana dhigashaya tacliim dhaqaaliya maal tagtee dhankayga waleema qabo ururkii dhalintaanu nahay dhashii Somaliland kuwii loo soo dhintiyo dhaxalkii wadankaanu nahay dhaxalkii wadankaanu nahay laftaa dhabarkee dalkii iyo dhaayihii wadankaanu nahay rajada lagu dhaatay iyo dhoolkaa qortay baanu nahay ubuxuu dalku dhowraye ciidani dhur sugtaanu nahay calanka dhiigga loo shubiyo dhulka loo soo halgamay dalinta jecel baanu meel dhig nafta iyo maal labiyo dhadig baanu nahay barbaadhulka hooye iyo ciidooda ku dhaaratiyo dhalintii wadankaanu nahay heestaas yare gaaban ee duceeda xambaarsan ee khudbadii iyo Waalka Cabdikariim jeediyey aan iyadoo eraya u bedelay